Hey, salaamu calaykum. Waa xeeladii xirfad oo isbuuc walba kala socotaan aqoon maskaxda kobcinaysa. faraxsanahay inaan soo dhaweeyo isbuucii mar ayaan muuqaal soo gudbinaa. Horta waa mahadsan yihiin dadkana soo weydiiyey website-yada oo education purpose-ka macnaha isbuuc hore waxbaan sheegnay, waxbaan soo bandhignay aqoonta bisbaraay. Kadib waqtigii 17 ahaa waa soo wadnaa insha Allah tacaala website-kii aan soo binaynaa, website-kii database-kii waxaas ku xiriirnaa. Laakiin hadda waxaa socota bas isbuucyadan waxaan soo bandhignay oo ku soo bandhignay YouTube iyo Facebook maxaa waaye aqoonta guud, cilmiga guud ee u baahnayn academic knowledge ama professional aan ahayn oo macnaha qofka aqoonta guud Soomaalida waa naqaanayo dhammaanteen masaajidda tagi jirno xara ahayn Soomaha marka maski masaajidka la joogo qof qalin qoro wato wax qoraya qof kale darbiga iska fadhiyo iska dhageysanaya soo jiro walaal cilmi dagool marka teknolojiyadda naftarkeeda cilmi dagool leedahay cilmiga ka qaado adigoon ahayn computer science engineer oon ahayn wax la dhahayo technology IT aan ahayn just get the idea fikrad ka qaado bas ma fahanti marka caawa waxaan ka hadlaynaa internetkan inta ku soo galin horta saad fikrad uga sii qaato badda markay saan u socoto Soomaaliya waxa la dhahay badda macnaha badda Soomaalihan qofka badda korkeeda dabaalna wala arki karaa Soomaali laakiin qofka dadkiin badan ma arki karaa wax dadkiin badan ya arki karaa ya soo qaban karo qof dabaal yaqaano tiin bashan yaqaano Soomaali laakiin wax haday gunta hoos gaaraan oo badda gunteeda hoos gaaraan ya soo qaban karo qof dabaal yaqaano soo qaban karo may waa qof qalabkii loogu talagalay xiran internetkana wuxuu leeyahay qaybta sare oo wax kasta laga soo qabsan karo oo qof walba ka qabsan karo qayb hooseyso oo la wada qabsan karin iyo qayb gunta hoose ah oo dad u tababarnay aadi karaan waxaan aan ka wada macnaheedu wax kala ma ahane Google dhigga hadalka wuxuu ahaa waxa la dhahay jiro surface web deep web iyo dark web aqoonta guud iska qaado oo macnaheedu tahay surface web macnaheedu maxaan ka wadaa surface web macnaheedu maxaan ka wadaa wax kasto intaad internet ku qorto aad soo heli karto tusaale ahaan maanta Google wax kasto aad ku qorto Soomaaliyeed wax leeyahay taas maxaa la surface web la oo macnaha dushi saaran yihiin asbaabtana maxay tahay waa la index gareey Google index gareey index macnaheedu maxaa waaye buugan ku soo qaadanaa tusaale buug markaad soo gaarto buug weyn pages ugu horeyso xiliga buug wuxuu leeyahay number kasta oo buuga kamid ah baal walba buuga kamid ah qaybta hore buuga lagu qoro waxaa la fahras ama index oo macnaheedu tahay buug page walba buug kamid ah numberkiisa halkaas ku qoran yahay marka wax kasto internetkana Google-han saas u isticmaalayo markaad wax la daabaco waa la index la gareeyaa index macnaheedu maxaa waaye dadka imaanaya si u raadsadaan laakiin taas surface web la waa la index gareey moogtahay waxa ku saaray waxa la deep web macnaheedu maxaa waaye lama index gareynayo oo macnaha calaamad loo yeelay hadda buugga tusaale ahaan page kamid ah buugga hadda calaamad loo yeelin ka waran numberkiisu ku wareegaysa saacadii ku qaadanaysa inaad soo hesho Soomaali at the same time waxa la aan la Google aan laga helin waxa kamid ah waxa la database-ka password-ka waa qayb database mid waa la kaydiyaa iyo financial records waxsan iyo account-kaada tusaale ahaan account-kaada markaad galayso adiga xogta kugu jirta account-kaada iyo waxaad ku qortay Google la raadiyo ama search la raadiyo lama helayo sabab maxay tahay lama index gareynin taas deep web la dhahaa password-ka kamid wax kasta kamid yaa awood inuu helo qofka iska labis asigoo password isticmaalay waxa ku soo waxa la dark web macnaheedu maxaa waaye waa qaybta ku dhahay baddo guntoos oo badda yaa aadi kara qalabkiin la xirto wax la xirto Soomaa dark web waa meesha 96 internet xogtiisa inay ku jirto tusaale ahaan anaka waxa sanana internet waa maxay la dhahaa maanta calaaya Gmail Facebook Yahoo just all of that thing is being Google these things no boqolkiiba 4 ay yihiin internet la sheego dhan waxaas boqolkiiba 4 ay yihiin boqolkiiba 96 lama yaqaan internetka anina maswa waxa la dark web maxaa marka waa meel xogta anina miska lagu soo gudbiyo waa meesha ugu daran oo criminalka dambiyada la dhaha white collar crime ana dambiyada laba u kala baxaan waqti dambiyada la dhaha violent crime oo dhig ku daadiyo dambiyada white collar crime la hadda adduunka marka wuxuu soo bedelay dambiyada la white collar crime oo dambiyada shaadka ku cariya dambi gelis wax kamid ah corruption kamid ah musuqmaas waxaas white collar crime la at the same time dambiyada white collar crime ka boqolkiiba 80 waxay ka dhacaan internetka qaasatan dark web waa meesha hubka lagu kala gado adduunka waa meesha dragska lagu kala gado marka adiga dark web caadi ma access gareyn kartid Google wax ku soo qabanaya mala browser qaas u leeyahay tusaale hadda dadka aadid browser waxa la tutorial laha ama onion browser dad badan ugu yaqaanaan browser kaas waxa lagu talagalay
in uu access gareeyo waxyaalahaas xogtaas bas ah macnaha meeshaas yaa aado dadka la dhaha whistle blowers dadka dambiyada weyn dowladaha ka gale xogta meesha kusoo gudbiyaan waa xogta meesha laga qaato tusaale ahaan qofkan dowlad weyn oo dowlada adduunka kamid ayuu xog ka hayaa halkaas u geynaa internetka qaybtaas kamid ah qaybtaas oo qaybta la dhaha anonymous dambiyada adduunka weyn lagu subiyaa 90kii aa la subiyey umalana ku 90kii ciidamada maraykanka subiyey haddana ayakaa ka sheegto macnaha xogtooda lagu